بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأفرد شناط برنامج كأني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤالها بالشيخ الصوماليات وكجواب جري شيخنا الشيخ محمد عبد أمل حفظه الله. سؤال شنية اللحدنات أي قبل عام الساعة وإن شاء الله تعالى حلقة إنني شيخنا سائلك حولي هي وقبض شيخ هويدا أياد متى وحينا الشيء أنيقا ويل يقبض ويل كود انتي هوينا وكهريي وحنا ويل كتجي حاس يا فرع رورة هويدا وحي كتكتي جوري حاله ذهب يالعكاشة guriga way dardaarantay oo waxay tiri gurigaas 6 qol ah labada gabdhood iyo wiilka mid kasta wuxuu leeyahay 2 qol dahabkii qayb ana qaatay qaybna walaashay ayaan siiyay lacagtii kaashka ahaydna sidoo kale aniga iyo walaashay uun baa qaybsaday lo'diina waan xaraashay 3 ayaanan u qaybiyay qayb ana qaatay qaybna gabadha walaashay ayaan siiyay qaybna agoontii walaalkay ayaan meel u dhigay hal neef oo ay hooyo ka sii dardaarantay oo ay agoonta siisay ayaa looda ku jiray isna waan iibiyay waxaanan waayay wax u haya qaalinta marka waxaan ka yeelayaa qaalinkii wiilkaas ee aan ka iibiyay sidoo kale qofku hadii uu ka horeeyo waalidka dhaxal ma ku leeyahay sidoo kale gabadha walaalkay qabo iyadu miyay wax nagu leedahay oo dhaxalka ay wax ku leedahay. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤال قبل أحبضا بقصا وسكول حقصا وإن لك الصحاء بهن إرتا مدهورة روحو أدو كهر لنتو ruuxii qaraabada ahaayeen dhaxalkiisa wax ku yeelan lahaa haduu ka hormaro dhaxalka waxba kuma laha meydka waxa dhaxla marka uu dhimanayo naftu ka baxayso dadka jooga baa dhaxla laakiin ruuxii ka horeeyay dhaxalka wax kuma laha sidaas daraadeed wiilka ay gabadhooda la walaalanahay ee hooyo dhimashadeedana uu ka horeeyay wiilkaasi dhaxalka waxba kuma laha وكذلك وحنا دحلك وحكو لهين حاسكيسي oo iyadu waxay ka soo gali lahayd ninkeedu wuxuu dhaxlo ay wax ku yeelan lahayd hadiiba ninkeedii uu san dhaxal yeelanin iyaduna meel ay ka soo gasho malaha qodobka labaad qaabka ay gabadhu wax u qaybisay muxuu ahaay daabkii ani walaashay baa qaybsanay xoolihii noolaa saasaan u qaybiyay gurigii saasaa la kala yidhi waxaasoo dhan wax saxsan ma in hawadeeda iyo siday rabtayadu wax u qaybiso sax ma sida saxda wax weeye in ay shariicada u bandhigto oo culimada u geyso xoolihii oo wada jira hooyo ka tagtay wixii ay dardaaran ka tagtay iyo waxay xoolo ka tagtayba in culimada u geyso iyadu ma garanayso wax ma garanayso muuqata culimadu marka ay kala saaraan maxaa saxsan dardaaranka hooyo ma soconaya miyaa see xoolaha loo qaybinaya see loo kala leeyahay sidaas ay ahayd inay samayso laakiin iyadu hawadeeda inay ku qaybiso masala sax ma haday laba gabdhood yihiin sida ka muuqata wiilkii waa dhintay laba gabdhood baa soo haray labada gabdhood xoolaha ay maamadu ka tagtay oo dhan waxay ku leeyihiin 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood bay ku leeyihiin فإن كن النساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وكاله تبارك وتعالى 3 ميلود 2 ميلود بيولي وحي حولها كسو هرا waxa yeelanaya wiilka dhintay ee maamadu dhashay caruurtiisa yeelanaya wiilal iyo gabdho isku jira way casabayna ku yeelanayaan wiilasha ayaa gabdhaha ay walaalaha yihiin soo casabaynaya caruurta iyagoo wada socda ayay marka casaba ku dhaxlaya wixii labada gabdhood ka soo hadha waxayna soo hosgalaya xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam alhiqul faraa'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajul dhakar dadka shariicadu wuxuu qadartay waxooda siiya waxa soo hadhayna rag ninka ugu xiga ayaa iska leh maamada dhimatay
carruurta ay iyada u tahay oo wala ay wiilkeedu dhalay baa rag ahaan ugu xiga iyagaasaa marka usoo fadhiisanaya muxuu ahay casab ahaan usoo fadhiisanaya wixii iyaga labada gabdhood ka soo hadhay iyagaa qaadanaya taas waa dhanka dhaxalka see loo leeyahay waxaa kuu soo hadhay dardaaranka maamadu ay ka tagtay oo intaasi hebel baale guriga saa u qaybi saas iyo saasaan u kala dardaarmay wiilka carruurtu ka tegay waxaasaan u dardaarmay dardaarankaasoo dhan waxba kama jiro dardaaranka maamadu dadkay wax u dardaarantay waa dadkii dhaxalka lahaa waay dadka dhaxalka lena oo wax ku lena waxba looma dardaarmo xadiidkii nabigaa tilmaamay sal alla alay wasalam uu yidhi ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaaris ruux sidiisaba dhaxalka wax ku leh waxba looma dardaarmi karo saas daraaddeed dardaarankay maamadu dardaarantay waa la burinayaa xoolihii oo dhan baa laisku soo celinayaa xoolaha marka la isku soo celiyana waxaa loo dhaxal siinayaa sida aan sheegnay oo shareecadu ay tiri labada gabdhood ee maamadu ka tagtay 3 meelood 2 meelood bay leeyihiin meesha soo hadhay waxaa iskale carruurtii uu wiilku ka tegay oo wiilal iyo gabdho leba loo qaybinayaa lidakari mithlu xadi lunhayayn gabadha tasarufkeedii oo dhanna waa la burinayaa qaabkay wax u qaybisay qaab shareecadu waafaqsan maaha wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك لحدن يلحاد وحولي هي شيخ وحن واسلا قبض يدونا سؤال بحالة صوترتي شيخ وحن نهي لبا بهود بحوا أنيقا كليجي بحنا واشان قبضات يلبا ويل أبا وحو كتغي قريجي أنا كنول أو هجا جستي مركي دقالدي سوماليا كدب يبور بركي سو غاري كدب سؤال شيء waxay tahay gabadh aan anigu dhalay oo la guursaday oo aan guriga qayb ka dajiyay ayay baxdi kale igu tiri gabadhaas iyo ninkeeda banaanka u saar kulama deganaan karto anna waan xanuunsanahay oo kaliya ma deganaan karo marka sheekh maxaa xal ah sida horta asalka marka xoolaha laga dhinto mayd ku dhinto waxaa la doonayaa xoolahaas in la qaybiyo oo shareecadu qaybiso loo geeyo oo maxkamad sharciya ama nin culimo oo yaqaan ahkaamta dhaxalka marka in si sharciya loo qaybiyo asal waliba waxa fiican in la dadajiyo oo dadka xuquuqdooda loo kala cadeeyo hadday isku sii jiraan xoolihii oo qaar ka mida dadkii dhaxalka lahaa ay qaar kale u ogolaadaan inay intifaacsadaan sida gabadhan oo kale wixii la isku lahaa intaan la dhaxalin baa loo ogolaaday inay intifaacsato oo ay deganaato ayada haddii loo ogolaaday waa ixsaan laakiin dadka dhaxalka la leh weli xaqoodii guriga way ku leeyihiin ayada qaybteedii unbay ku leedahay qaybtoodii iyagaa weli iska leh inay deganaato intifaacsatana waa ogolaansho ixsaan iyagu u sameeyeen maadaama milkiyadoodii ay ku jirto qaybtoodu ayagu ciday doonaan bay siin karaan ciday doonaanna way u ogolaan karaan hadday iyada u ogolaadeen gabadheedana u diideen xaq bay u leeyihiin inay yidhaahdaan adaanku ugu talagalay intifaacso laakiin gabadhaada nin baa qabee gurigaas uma ogolin ee meeshii kale ay degaysa ha degto xaq bay u leeyihiin laana xoolahan iyagaa iskale soo maha xoolaha ciddii iskale baa tasarufkeedana leh hadday ka heshay u ogolaadaan inay gabadhu degto ixsaan kale u sameeyaanna khayr wey haddii kalena war ay ku tidhaahdo maxaa xal ah waxaa xal ah warkooda yeel xoolahan iyagaa iskale xisadoodii iyo qaybtay ku leeyihiinna adiga hadday kuu ogolaadeen gabadhaada u diideen xaq bay u leeyihiin iyagaa tasarufka iskale iyagaa bixinta iskale iyagaa siismada iskale iyagaa iskale marka warkooda yeel ayagaa leh adigu intaad ka leedahay guriga unbaad ku tasarufi kartaa wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك لحدن يتطبات وحولي هي شيخ وحنا يستاجل نسابك قاري سكذا اللي يقول لي هنا واتولد شنجرة قال أنا يقوم أجرته إيب بان مدوك دون يوانا كوايي مركا محان سمين كراشا مسألة النبي كتشوابي صلى الله عليه وآله وسلم حديث البخاري غير كيسوس صارين نبي وحور صلى الله عليه وسلم فمن بلغت عنده صدقة الجدعة
روحي سكذا حولي سكاكو أي ساين نقطة نيف شنشرة وليست عنده جذعة شنشر كينا ما هيو محو صمينيا وعنده حقة فإنها تقبل منه دأذي كهو سيسي أفرشير كايد بوهيا دأذا صبحينيا ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له لبن نفو أريان وراعنيا يعني دأذي للربي باقيلي لقوة صوما دأذا كوحتي كهو سيسو بحينيا لبن نفو أريان وراعنيا أما وحو راعنيا 20 دينار 20 كدينار 20 درهم بانو جيدا أما 20 درهم براعنيا أما وحو راعنيا لبن نفو أريان دينار كوا وفضدي واحد والعكسي محوها هاي قلنك هاي واحد طيب إن القيمة يوم يهدى محوها هاي سيدك ده لو ما فهمي كريه لكن وعلى فهمي كريه الله من يفعله طيب حدي ويو قياس كاسو مرك حديث كوسو عليا حدي أفرشير أي كواجبتو أفرشير ويو سدحشير بو مركب بحينيا كدي ونوح الراعين يا الله من يفعله haddii 3 jir laga rabay oo laga waayay 2 jir buu bixinaya 2 neef ari u raacinaya haddii tii laga rabay uu waayo laakiin tu ka weyn uu hayo taa ka weyn buu bixinaya kadib 2 neef ari loo soo celinaya مثلا 4 jir baa laga rabay geelina 5 jir baa ku jirta 5 jir buu bixinaya kadibna wuxuu ceshanayaa 2 neef ari seebuu ceshanayaa waxa laga wadaa waagi dawladdu muslimku sakada uruurin jirtay bay ninka dawladda ka socday sakada uruurinayo ku leeyahay 5 jir kan qaado 2 neef ari ii soo celi hadii hadda isagu uu bixinayo oo dawladda sakada qaadayso ka ceshada uusan haynin laba mid buu samayn karaya in uu muxuu ahaay 2 neef ariga arraaciyo oo sakadii iyo sadaqa wada socota ay u noqoto 4 jir baa laga rabay 5 jir buu bixiyay waa siyaado sadaqa ay u noqonaysa iyo inuu haduu waayo intuu gado wixii ka ceshado wixii kalena uu qaybiyo masaakiinta uu qaybiyo inta xal bay noqon kartaa wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik saailka 68aad waxa uu leeyahay sheekh sakada hadii la hormarin karo sanadkii hadii la gaadho oo aan khasaaro intee u raacaya lacagtii ama sakadii aan hormariyay sidoo kale hadii aan faa'iido sakadii aan bixiyay maxay noqonaysaa horta sakada waqtigeeda iyadoon gaarin ma la hormarin karaa horaan uga soo jawaabnay sida culimadu u badan yihiin saxiixa hadiis ku soo aroortay sakada waqtigeeda iyadoon gaarin waa la sii hormarin karaa su'aashu waxay tahay hadii la hormariyay xilligii bixinteeda la gaadhayna xoolihiiba ay hoos uga dhacaan zakadii marka zakad laguma le sooma xoolana uu sii bixiyay magac zakawat xoolahaasi xagee buu raadsanaa ya ilaahay u raadsan waay sooma xoolahaas meel loo doonto male xoolahaas sadaqay noqonaya ilaahay agtiisay u yaalaan waa kayd ما خساريو لكن زكاة ما دام أين كوا جبين ما ضيع ميان وحي نقنيان صدقة نقنيان ماذا بك حنفي جا وحيليهن لو مدوهي حديث كذي مركوب بحيي أي قعنتي مسكين كقول علي حولك عن مسكين جاري كده وتجمله صدقة نقنيسان حولها واحد كقاضي هدي دولتي تحت أما عيد دولة كسعته صاحبة لهذا وسكذا كقاضي ولنا أين قعنتي صرافين ومسكين كي أين قاري مركها يسوع علي بديه كره ومثلا فرض جاده إيمانه يا أما فرضين تجده إيمانه هذه كذا مركها دولة قاضي سواها ولقى قاضي سند بلقاه هرمريي سند كمركي لقاري وحولها جي سكوا كم واجبين حولها جي ولي دولة قعنتي هذا كتير تمر ضعفين ومساكين تمجارين علماء بقار بوحيل المركز وكله وحديه كرتا أدر سكي يقوم واجبينه وحواجه يسوع عليه لكن هذا قعن مسكين قشوا صدق يكون تايتاس كذا تجملها والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك اللي حدني سجالات وحولي هاي
sheekh dadka qaarkii imaamku markuu ku jiro i'tidaalka ama sujuudda ama fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood ayaa waxay sameeyaan inay taagni ku sugaan imaamka ilaa uu ka fadhiisanayo ama rakcadu soo kacayo taasi markaa waxay keentaa inay taagnaadaan iyagoo salaadii lagu jiro arrintaas ma saxba halkee ayaana laga xidhan karaa imaamka arrintaasi sax ma ah waa khalad imaamka haddaad salaada isagoo ku jira imaato meel alla meesha aad kala soo kulanto waa inaad xidhato meesha uu markaa joogana aad la qabsato waay hadduu ataxiyaadu fadhiyo hadduu sujuud ku jiro hadduu rukuucsan yahay hadduu taagan yahay meel alla meesha markaa uu marayo ayaad salaada kula xidhan oo kala qaadi laakiin waan taagnaanahayaayo inuu xaalad aniga aan qorshaystay soo gaadhaan sugaya warkaas war jira waxaa tilmaamayaa axaadiista nebiga sal alla alayh wasalam uu ka mid yahay xadiidka abu daawuud iyo keyrka ay soo saareen nebigu uri sal alla alayh wasalam idaa ji'tum ila asalaati wanaxnu sujuudun fasjuduu walaa tacuduuha shay-an haddaad salaada timaadaan annagoo sujuudsan sujuuda laakiin sujuudda aad nagu soo gaadheen ha tirsanina bimacnaa ragcada ha ku tirsanina waay waman adraka arakcata faqad adraka asalaa ruuxii rukuucda soo gaadhaay salaaddii waa soo gaadhay buu nebigu sal alla alay wasalam bimacnaa meeshaad ku soo gaadhaysa hadday rukuucda iyo wixii ka horreeya tahay ragcaddaa waad xisaabsanaya haddaad rukuucda wixii ka dambeeya soo gaadho imaamka waad la xidhan laakiin intaas oo dhan kuuma xisaabsana ajirkeeda ilahay agtiisa waad ku leedahay laakiin salaada arkaanteeda kuma xisaabsana waxaa isagana macnaha faa'iideynaya xadiidka mucaad ibnu jabal oo nebigu uri sal alla alay slam tirmidi yaa soo saaray waana xadiis saxiixa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam idaa ataa axadukum asalaata waalimaamu calaa xaalin falyasnac kamaa yasnacu alimaam kanaa ka caamsan kii hore sujuudda unbaa soo maa midkiin hadduu salaada yimaado isagoo imaamkii xaalad ku sugan yahay lama kala qaadin ma fadhibaa ma rukuucbaa ma sujuudbaa xaalad salaada ka midoo imaamkii ku sugan yahay adigiina waa timid falyasnac kamaa yasnacu alimaam buu nabi sal alay slm imaamku sida uu samaynaya samee salaada gal imaamkaagana raac alimaamu tirmidi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay sidaa xadiidkaasi ku tusayo ayaa ah madhabka ahlulcilmiga marka inaad iska taagnaato macno ma samaynayso salaada xidho ha taagnaanin imaamkuna meeshuu marayo kala qabso salaada horey uga soco haddaad rukuucda ku soo gaadhay ragcadda way kuu xisaabsantahay haddaadan rukuucda ku soo gaadhin intaa kale waa ajir baad ka heli laakiin rukuuc ahaan iyo salaada wixii lagaa rabay kuma xisaabsana wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك تطبعتناد وحوري السلام عليكم شيخ الله حفظيه علمك سنة الله بركيه وحن ويدين يا صلاة عصر أيان تكنيي إمامك أيا سهويي صلاة مركو دميي أو سلام النقصدي كبعد أي سجود سهوي ليمي ما إنا لسجودا مسوان اسكدا فكرة هدان أوجهي إني صلاة صح سنيد هدي إمامك أقول سهويه imaamkaaga waa inaad ku raacdo sujuudu sahwiga adiga xataa haddaad hubto in imaamku sahwigiisu uusan ku gelina laakiin adiga aada xaqiiqada hayso sahwiguna imaamkaaga keliya uu ka dhacay imaamkaaga waxaad ku raacaysaa sujuudu sahwiga waad ku raacaysaa sidaasina waa ijmaac waxaa soo guuriyey alimaam ibn mundir caleyh raxmat ullah wuxuu leey ajmaca kullu man naxfadu canhu min ahli lcilmi calaa dalik dadkan cilmigan ka soo gaadhnay kulligood waxay isku raaceen in imaamkaaga sujuuddiisa aad ku raacayso sujuudu sahwigiisa ayib wakadalika waxaa soo guuriyey ijmaacaas isxaaq ama ha sujuudo salaamo naqsiga ka hor ama ha sujuudo imaamku salaamo naqsiga kadib labadu way soo arooreen xadiista nabiga sal alla alay wasallam waxaa ku sugan imaamku hadduu ismoodsiis ku dhaco oo uu sahwiyo salaamo naqsi intuu salaamo naqsadoo salaada ka baxo marka kadib inuu sujuudda halkaa geliyo way ka sugan tahay intuusan salaada ka salaamo naqsanin inuu sujuudu sahwiga ka hormariyana way sugan tahay ma khiyaar baa oo ma siduu doonuu samayn karaa mise xaaladay yacni wax way kala raacaysaa
oo horumarinta iyo dibdhigiddu xaalay ku kala yani khaasan tahay oo ku kala saabsan tahay khilaaf bayna cilmi waay laakiin waxa la isla ogol yahay hadduu ka hormariyo iyo hadduu ka dibrido salaamo naqsigaba waa sidaas labaduba sax waay marka imaamkaaga raac waxa daliilu xadiithi nabigeena sallallahu alayhi wasallam inma ju'ila al-imam liyutamma bihi fa idha sajada fasjudu imaamka waxa loo yeelay in lagu daydo la raaco in la khilaafa ma ee markuu sujuudo la sujuudo nabiga sallallahu alayhi wasallam إطلاقا فإذا سجد فاسجدوا وحتلباميا سجوداسي أما السهوية كتمادو أما تي صلاة أصل كيها نقطة مركا إمامك قوات راعي هدو السهوية ميل الله ميشو سجود السهوية قليانا واتكدب قلي ساسة تكون راعيسا كقوسا ميسد كون خلاف ميسد والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك تضباطا يكوبات وحولي هاي شيخنا سيدبال لو تكدا كورما سلا تكدا ومحيس فائدوين كان لغا هلو صلاتها سو سودا كو صلاه التصابيح لبو صلاه الزوال اما صلاه لا تكدا markay qorraxdu iilato wala su'aalood oo laba salaadood ku kala saabsan salaada la yiraahdo salaatu tasaabiix xadiista ku soo aroortay khilaaf ba ku jira ma sugan tahay mise ma sugna حديثي تقار كم إذا وحيليهين حديث تو السجن تهاي وين يسحوتشنيس دي تاصل لمرة حديث تو السجن تهاي اللي ده هذا قاب كلوتو كان يو وحويان وأفرق عضود ركعت كستا أفرق عضود أو وضع الصعدوية أو الأتحيات ودحين ركعت كستا وحال آخرين يا فاتحة هي صورة مركز حلوتو فاتحة آخرين كديمنا الصورة بعد كتنبيس markaad suuradii akhrido ayaa marka waxa leedahay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar 15 goor intaad rukuucin markaad qiraa'ada dhameysoodan wali rukuucin ayaad 15 goor akhrinaysaa markaad rukuucdo ayaa waxa leedahay 10 goor intii kale subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar markaad rukuucda ka soo toosto oo aad taagan tahay ayaad hadana waxaad leedahay 10 goor markaad sujuudo ayaad hadana waxaad leedahay 10 goor markaad sujuudda ka soo toosto oo laba sujuudood dhexdooda ah ayaad hadana waxaad leedahay 10 goor markaad sujuudda ku noqoto sujuudda labaad ayaad hadana waxaad leedahay 10 goor markaad sujuudda labaad ka soo toosto ayaa hadana waxaad leedahay 10 goor intaadan istaagin meeqa يا حسابنا تضباطا يا شوال فتلك 75 في كل ركعة أفرت ركعة مد والباء تضباطا يا شن تسبيحات يا تكبيرات يا تحميد طيب أفرت كل فمرك تضباطا شن أفر مرك كله دماغ واحد وهي 300 في 4 ركعات وصدح بقل وأفر ركعات صوما sidaas horta loo tukadaa maxaan ka helayaa baati su'aasha leedahay Soomaa falaw kaanat dhunubuka mithla ramli aajin ghafaraha Allahu laka aalij hadii dhunubtaadu leegtahay dhul bacaad oo aad u bacaad badan oo aalij leeyahay dhulkaas bacaadkiisa hadii dhunubtaadu dhan tahay Ilaahay waa ku dhaafayaa markaas wuxuu weydiiyay oo rasuulka Ilaahay oo maalin kasta yaa tukan kara salaada noocaas markaas nabiga wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam maalin kasta dad kareen usbuuci martuko markaas wuxuu yiri hadaan la kareenina bishii martuko hadii kale sanadkii martuko hadii kale umrigaaga martuko hadiiska saasa وحديثك يا صلاتيسا لسكو خلافسي ما سوغنتا مس ما سوغ هدا ادو اجر راي تاي او تراهدو ادير انو عبادن رباي ما سوغنتا ما سوغناديدا او كادي هديبا wax loo heli karo waa tukanaya tuko sidana waa loo tukan ajirkana waa laga helaa طيب ابن عباس iyo ابو رافع iyo xad yani saxaabo dhowra warinaya taaso su'aashi koobad ma أما غورما لا تكنيا واي wuxuu yiri goorma la tukada maxaa laga helaa see loo tukada soo saas ma ahayn laba waa ka soo jawaabna
سيلو تكذانا وكجوابني محل هليانا وكجوابني قورما لتكذانا وقت ملئ وقت يدا صلاة أي كراهية تهي أون إسكا إلالي هبين إيمان حلقة دونتو وقت حديدا ملئ صلاة اللواد يسواشي صلوات كتب وحوي صلاة الزوال بلدها وقرحدو مركي برتمها وحير أي كإيلته حلقة ظهر سوق ليو أيالة كذا صلاة دانا وسواشي صلوات واحد أيضا روح كسو أروري حديث ما كسو أرورتي حديث وحكم إذا حديث أبو أيوب الأنصاري وحي رسولك صلى الله عليه وسلم أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات عند زوال الشمس نبي وحي دائمي تري 4 ركعات وقرحدو مركي برتمها لنا غير اللي حتو حلقة إسقاء أيا وحي تكن تري 4 ركعات دائمي تري مركز واحد يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها رسولك إلهي 4 ركعات دائمتو محيه مركز النبي صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس سماء إرده إذا وحال فرفراء مركي قرحدو أي زولي سوشوئي برتمها كير اللي حتو فلا ترتج حتى يصلى الظهر مركا لحري مايو إلى ظهر كالتكدو ويفرنتها معنا فأحب أن يصعد لي فيها خير مددا مركا صبادو فرنتها وحان جعلها إنو خير فولو وحق إلهي خير آدو ساسا أنو تكنين مركا سوحا يا رسول الله تقرأ فيهن كلهن ركعتها صورنا وحبا أخردها مركا النبي يقول نعم ها مركا سوحا قلت فيها سلام فاصل أفرتك على ركعتها مسلان كلا صارتاج سلام نقصية تحيات ما أود حياة مركا النبي يقول لا ما أفرت ويسكو حرين أفرق عضو يسكو بيحزو أحمد الترمذي بصوصار في الشمائل ابن ماجه ابن خسيمي غيركود علماء قالوا حين الحديث كان سوى حسن لغيره وحائس معناها كو إيمانيا حديث عبد الله بن السائب رسولك صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ظهر ككهر قرحدنا وحي أي زو شيء أي النبي أفرع وتكنشري مركاسا وحولي إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد اللي فيها عمل صالح حديث كاسونا ترمذي غير كباسو صاري لو هذا حديث ويسحوجنا يا المرك حتى متكون هذو ضعف في كتير ويسحوجنا يا صلاة داس مرك وصلاة شرطة صلاة داسي وصلاة شرطة وحلقة يا بدن كان إننا المغلين بقى لكن سؤال شيء سويدين ترى وحي تهي صلاة داسي أفرت ركعة ما أفرت الدور ككهر ريبا مسوا أفر ركعة زوال كدرتي لوتشي دي تاسي مركو علماء السوق خلاف سيئه ولو حيليهن وسنة خاصة للزوال وصلاة سنة والزولتان كقرحة هل كاقشة طيب سيدا وحا قبائن سنة خاصة للزوال تهي شافعية هي بعض أهل العلم ابن القيم بان الرجحي جمهور تسوحي قبان سيح علماء بدينهن أفرت ركعدود إنيهن أفرت ركعدود دور ككهرية صلاة مدح بنان أي سنة هي تامرك وحوي وفهم كعلماء أحاديث تكسو أرورتين وكوا وصلاة ترتمرك أدو أما تي دور كهرية كدك صلاة دور سنة دور كهرية أما صلاة مدح بنان كدك إيضنا ويسوغنت هاي والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك تضباطني لبا حولي هاي شيخ ما بنانت هاي إن قف تكن يهر مرته هدات كفكت هاي أصلهان هرت الروح تكن إن لهر مرة وحرام النبي صلى الله عليه وسلم وحيري لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه هدو أقال لها ميدك الروح تكن يهر مريا وحكسو قاري والدنبي هدو أقال لها أفرتن إنو تاقنادو أيا أقا خير بنان الله إنو هرمر روح تكنية طلو أفرتن كاس محيه ما أفرتن بريبا ما أفرتن ساعدات با ما أفرتن سنة حديثكم عطين لكن وحا أوير هدين لغا سو قادة بحتا أفرتن ساعدات إنا تاقنات أيا كوردانتو كاغا خير بدن إنا تروح تكنية هرمرتو حديث أبو سعيد الخدرنا كاسو متفق عليه كانوا متفق عليه حديث أبو سعيد الخدري وكي النبي صلى الله عليه وسلم متكين هدو تكنيو روح هرتي سمرة يوسن أقلانين
وليدرأ ما استطاع أنت تذكر كرت إسكعلي horta dadka maray iska reeb waxa laga wadaa markaad sutra leedahay wax markaad soo dhigto sutradaadii adiga in la kala dhaxmaro iska celi oo haduu idiido isa soo maqiiqana fa in aba falyuqatilhu nabi sallallahu alayhi wasallam la dagaalan fa inma huwa shaytaanun wa shaytaan marka balaaya dabada ka wada iska celi feed kala dal balaaya gada salaada gudaheeda salaada gudaheeda la dagaalan iska celiyo ku hormarin nabiga sallallahu alayhi wasallam يعني حتى waxay leeyihiin qaabka dawlad dagaalamaysa isaga celinaysa al-ashal fal-ashal kolba intuu kaaga joogi karo haduu gacanta saa ugu joogi karo saa ku dhe haduu soo dardaro riix haduu soo dardaro feer ku dhufo ma garat nabigu faliyadfa madin falyuqatilhu hal dagaalamo nabi sallallahu alayhi wasallam ma garat marka wadaadadii hadda waxay keeneen salaad dhexdeeda lagu dagaalamo yaa la dhigin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ma anaga ma ويهان وركا بطيو هذا الكواب الله تشرب امتحان بقى دعم مركا يعني واحد الماميسا هرمريد الروح الله هرمريو إن أي تهاي من كبائر الذنوب ذنبيه دواوين بكم تهاي هرمرين مركا هذو السترة ليه أو شيء صور لجاي أما كو آدي إسقى السترة دي سلا كلا نحبر ماي هذو سن سترة لهين أو هرتيس إسكفرن تهاي marka iyadana la hormari maayo laakiin ilaa intee baan la hormari karin sutra markuu san lahayn ka fogow meel ka yara fog mar ilaa xadee maxaa daabidu afogaanshaha taasay marka isku khilaafayaan culimada qaar waxay leeyihiin inta sujuudiisu gaarayso baan la maraynin waana sida Sheekh Ibn Uthaymeen ay qabaan culimada qaarna waxay leeyihiin ma ahee saddex dhudhun شيخ ابن باز ولي صدح دودن او وحو دليشانيا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم markuu kacbada galay kacbada tiirarkeeda kamida buu isku aadiyay mise darbigeeda darbigu isku aadiyay tiirarku waa u dhaxeeyay marka isaga iyo tiirka uu sutrada ka dhigtay ku aadan waxa u dhaxeeyay 7 dhudhun waxaan u jeedaa 3 dhudhun baa u dhaxeeyay marka ruuxa tukanaya ilaa 3 dhudhun intuu gaarayo كفوجو لكن كش شواد مري كرتا هذيك أنت اللي كفوجانا يسكو خلاف سيء لكن مال كفوج هداد مرتو لملا أنت وكسجودة يا أما وحير كير الدروك كدبنا مر هدون السترة لهين هدو السترة ليه هينا سترة دي سيساق على نحمر والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك تضوات ينصدح حولي هيا السلام عليكم شيخ اللدرتي أيان كوتش على هاي سؤال شيء لو حيت هاي واحد شرتا أماه موبيل كلو أماه ده أو أي إثيوبيا دتك أماه الصو مركز أماه توحير أي كتر دقيان مركز محين نكون إسا تكله تان سكبحين ويو أماه داس محرام بيجون نكون إسا ميدو هوري هورتا وحا أدقادتي هدي لعقتهاي لعقتي أو وحسارين يهينا إنك سوء لسو شرط لقاقا نغي وهشيسكي عقدك السيداي هاي والربو كل قرض جر منفعة فهو ربا روح كستا أو دينتو بحيي أي نفع أسو تشيدو أكينتو وحكهلا والربو قاعدة مجمع عليها واحد لأن باب كدينتو وحلا جمر هذه باب كدينتو وإرفاق إحسان واحد ما لها فائدة اللي جر هذه معه عديد دول صار أما فائدة تمادو حين الدنيا هاي هل كا وحاجة لي الربا جليس وحكدون عدي وحاءات قادتي ومنفعيه أما بديعيه بداعadaasi laga iibiyayna cid ka iibisa ay leedahay oo shuruudii milkiyada iyo muxuu ahay qabdiga ay dhamaystiratay oo badeecad ruuxu leeyahay ama bangi leeyahay ama hay'ad leedahay laga iibiyay kadib faa'iido la saartay marka dhib male badeecooyinka caadiga la kala gatay faa'iido la saartay kamid badeecadu laba ay u kala baxdaa marka cayn iyo manfac ay u kala baxdaa cayntu waa shay la taaban karo موبايل كان كائبي كمبيوتر كان كائبي
وعين لا تاون كرو نيف كان حولها كاغدي فايده صارن كرتا غوريران كاغدي مرنا ومنفعه وحن كم مثالين كرنا مثلا ايرتايل كوكله ان استعماله مثلا كمبانيada xiriirka sameeyo oo telefoonada macallaymanka lagu xiriiro waxa ay gadaan oo xiriirka ah manfacadan aad ku xiriirayso dadka kula xiriirayso lacag ma ah waa manfacadii iyo khidmadii iyada ahayd haday laba qiimo u kala sameeyaan oo ay ku yiraahdaan hadaad cash isiinaysana waa intaan hadaad manfacadii iyo khidmadii iyo servicekii aad ku qaadanayso deyna waxbaan ku saaranayaa taasi ma aha lacag la saartay ma maxay tahay waa badeeco manfaca ah oo faa'iido la saartay marka deyn ku qaadanayso wayna banaan tahay inda jumhuur beecul ajal baa la dhahaa waxay la mid tahay oo kale badeecada suuq ku taala dukaanka oo aad tiraahdo ninkii cash ugu siinayana waa 100 shilin هذا دينكو قادنا يسنا وابغول يكونتم هذا وكلا دورة مرك بيعوا الأجل بلدها وين ميت كم إذا لكن لو كو أنصار لو كلا تجو مرك هذا منافع تهاي أما عيان بديعين أي تهاي فإذا ولا صارن كرا هذا يصير لعق تهاي واحد لجوسية أو لجو ديمية لعق لما صارن كرو والربا مركز والله أعلم أما لعقتي هدي أم بحين وايو ما حد عيه ودين لجو ليه dad bixin weydo abidka baa lagu yeelan deyn lagu siiyo bixin weyday ama dawlad ka qaado ama bangi ka qaado ama hay'ad ka qaado ama shakhsi ka qaado deyn waa deyn hada bixin weydana qabriga bay kula gali Soomaaliga waa halkaas lagu qabsanayo wixii ka dambeeyay wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik saa'ilka 74 xawleeyahay sheekh balot ayaan gatay $6,000 jooga waxaan gatay bishii 7 ee sanadkii 2021 sanadkii hore ooman gadan inaan dego ee waxaan u gatay inaan sii iibiyo sakadiisu maxay noqonaysaa dhulka ka ganacsigiisa hadaad u iibsato inaad ka sii ganacsato faa'iido ka raadiso wuxuu la mid yahay badeecada caadiga ee laga ganacsado kale waa silaca yurudu tijaaru la mid yahay haddii niyada aad ku iibsatay dhulka uu yahay ama inuu ku yaalo ama inaad dhisto ama inaad kiraysato laakiin isaga la fahantiisa aadan sii iibinaynin markaas saka lagu malaha saka waxa lagu yeelanayaa marka dhulka u milkido biniyati tijara biniyati albay' faa'iido ka raadinayso marka badeecada caadiga ee faa'iidada laga raadiyo la mid yahay sanad markuu soo wareego waad qiimeyn suuqa qiimaha uu ka joogaad qiimeyn kadibna qiimahaasaad kaga zakaynaysaa waxaad bixinaysaa wixii qiimeynta kaaga soo baxa ayaa waxaad bixinaysaa 2% rubuc 20 rubuc 20 baad bixin 40 baad u qaybin ama waxaad samayn kartaa intaad markoo hore muxuu ahaay adigu isla meeshii bay imaanaysaa rubuc 20ga iyo 40 hadaad u qaybso isla meeshii haddii aad tiraahdo boqolay ka dhigna boqolkiiba 2 waaye saasaad marka bixinaysa aad u bixinaysaa macna marka la qiimeynayo waxa ka muuqda su'aasha walaalka inuu u haysto dhulka marka laga zakeynayo in laga zakeynayo lacagtii adiga ka gashay ee raasamaalka ah fahamkaasna sax ma waxa laga zakeynayaa marka waqtiga zakada la gaaro qiimihiisa suuqa la tagi dalaaliinta waa la diri waa la ogaan meequu maanta jooga hadaad $6,000 ku gaday waxa laga yaabaa maanta inuu joogo $15,000 waxa dhici karta inuu qiimihi hoos uga dhacay oo uu joogo $3,000 Sooma adiga hadduu kor u dhaco iyo hadduu hoos u dhacaba qiimaha marka uu suuqa ka joogo ayaad kaga zakaynaysaa la tadlimuna ولا تظلمون أذوقنا مساكين تظلمين يسود أذيقنا لو ظلمين معي لأن هذي دولكو قيميه هوس وقرد عينا ولا يداد الرأس مالك كجزكي هذا لو ظلمي هذي دولكي يقال يوبي لي يداد الرأس مالك كجزكينا مساكين تظلمين يا سامركا مركا لا تظلمون ولا عدالة السداس وهي والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك
toddobaatan iyo shanaad wuxuu leeyahay sheekh nin Kenyaati ah baan lacag 500 oo kaash ah oo aan shaqaynaynin ka sarriftay si uu kas ah ninkiina meeshii uu deganaa uu ka guuray waqti fogna way ahayd lacagtaas maxaan ku sameeyaa lacag aan shaqaynaynin bimaana lacag feega miya saasa u maleeyahay almuhim waa khiyaano waad khiyaantay khiyaanadana ilaahay ma jecla inna allaha laa yuhibbu al-khaa'iniin khaa'iniinta iyo kuwa khiyaanada sameeya ilaahay ma jecla waa dambi weyn khiyaanaduna gaal iyo muslim toona lama khiyaami karo caqiido waxaa jirta Soomaalida ka dhaadhacsano malaha gaala nacaybnimadii asalka ahayd baa keentay Soomaalidu way gaala nacbaan jirtay hadda way gaala daba ordaa qaarkood waagar way gaala nacbaayeen hadda gordhi baa ii sheekeeyay wadaada wuxuu yidhi islaan ayeeday ayaan gaari wada raacnay marka gaariga dhinac waxaa ka saaran buu yidhi nin cadaan ah yaa nala saaran waa maamo duqa maamadu intaan gaariga ku jirno dhan iyadii gaalka waa loo dhaxeeyaa oo nin baa u dhaxeeya malaha wiilkeedii islaanta intii gaariga la saarnaa oo dhan sankay haysataa marada sanka saa u hayso hadhow markii gaariga laga degay ayaa idhi buu hooyo intii gaariga la saarnaa sankum baad haysatay xaggana waad u jeeday maxaa dhacay waxay tiri hooyo gaalkan galka ganka cad ayaan urkiisa sanka haystay marka nacaybkaasi wuxuu ahaa nacayb asli oo caqiido ku salaysan oo dadku ay lahaayeen waxayna tilmaamaysaa qab ay Soomaalidu lahayd oo ayna ninna haba yaraatay gaar ahaan cadaan iyo ninna ayna waxba u ogoleen qabkii baa dhintay oo qiimihii baa dhintay oo hadda waxay noqotay in gaalada la dabayaa intaasi waa dhexgelin waay laakiin aanu soo noqday su'aasha jawaabteeda gaalada lama khiyaami karo haduuna gaalku ahayn gaal xarbi ah hatta haduu xarbi yahay khiyaanada iyo khudcadu way kala duwan tahay xoolihiisa khiyaano lagu qaadan karo gaal wada nooshihiin oo ammaan ku wada nooshihiin oo heshiistihiin oo dagaal idinka dhaxaynin dhiigiisuna waa xaraan xoolihiisuna waa xaraan sida ruuxa muslimka dhiigiisa iyo xoolihiisu xaraan u yihiin xaraan way binasi xadiis rasuulullah sallallahu alayhi wasallam لأن عهدك يا أمانك يا هشيسك وذنولان شهبا وحو كلفيا إن أدو إلى لسديك يسيحولي سينا دلانس خيانا ناسي مركم ببنا دينا عكالنا دبي كالي هذا خيانا ناسي وحا لغايا بادتك السمين إنه سبب النقدان إنه الدين إلهي يددك مسلمين تصمعات حنك قد بيها والدين تددك قدران نكا هذا مسلم كو خيامي بري دين الإسلام كسوق المياه لوكري وابدينتي خائنين تقوليه ضد واحد wax qiyaama ku jira meesha yaa muxuu haystay marka aafaway markaas oo kale waxay u baahan tahay ruuxaasi koo horta inuu toobad keeno ilaahay u toobad keeno marka labaadi waxa way xoolihii uu khiyaamay kiilaha haduu san garanaynin waa inuu sadaqeeyo waa inuu isdhaafiyo oo uu siiyo masaakiinta ama masaalixda caamka ee muslimiinta uu ku bixiyo wallahu a'lam جزاك الله خير وبارك الله فيك سائلك سؤال تضباطا يلح سائلك وحوليه السلام عليكم شيخ الله كعبال مريو خير كعدمة وفايدين يسو سؤال شيء وحويه حق بدأ أما أيوتضى جنتم حيك قبطها معاملة أيوتضى أما حق بدأ الليلة هذا علماء السيء بديهين ويبنان تهي يعني معاصرين علماء أكثر كوضة مجامع الفقهية هيئات كفتوضة بدن كود ويبنينيان علماء واوين سيدو كلا الشيخ بن باز الشيخ محمد بن صالح العثيمين علماء كلا ويبنينيان هران ويبه الرئيسيو مسألة إلى قرنجي سديدات لاستعمال الشريبة تقريبا مدة كسوري تلح بقول تضاب بقول الصنو بين تستعمال الشريبة وواحد لديه الشري يعني وحويان الجمعة لديك لأن أسبوعي هالمر بيسمين شرين ضمر كان لقوية قاني ضمر كان تيسي مادن حق بدأ أيو تصدى لهانشر وحافظ وضي إنه يبنان تهي علماء هراء كم بذا وليدون العراقي
الإمام عبد الرحيم العراقي ويل كيسي وفقيه أها شافعية أيا فتوضي قرنجي سيدات marka ilaa waqtigaas masaladu way jirtay kutubta shaafiiciyada madhabka shaafiiciga way ku taala culimada mucaasiriinta hadda joogana aqlabkoodu way banaynayaan waa nooc tacaawun oo iskaashi oo hada qabsiya maxduur sharciyana kuma jiro sax deyn la qaadanayo oo hadana kolba mid la siinayo oo wareegaysa oo hadana muxuu ahaay la wada intifaacsanayo way cid nafci qooniyo ku qabtana ma jirto ruuxa wixii la siiyo baa laga ceshanayo marka nooc iskaashi way wax dhibana malaha dumarka sameyn jiray laakiin raguna haday sameeyaan dhib ma leh hada raggi baa soo galay Sooma ayuutada rag badan baa ku jira marka wax dumarkaas ku ama wallahu a'lam jazakallahu khayran wa barakallahu fiik su'aasha 77 waxa uu leeyahay saa'ilku sheekh naag laga maqnaa muddo 8 sano ah biilna aan la siinin hadii la furo ma cidda tirsanaysaa jawaabtu waa لأن سيدي سنة لقى مقنا بيل اللي قمسين شرين حاسب هذا هيد صما بيل كأنه كان مقنا كم فرميس سيدي سنة طبعا سنة إن الحقوق هذه ويدا وجوش اللي جوه إيماننا كم فرميس ما ننتي اللي جو فريم فرنتي ما ننتي سين عدة كبل لعوت صما إلا فرينكم بعدة كبل لعوت صما وكي إلهي القرآن كي نوشي تبارك وتعالى لأن عدده فوريتانك كما هرمرتو صببت يدو مركي تمادو بي بالله وتعالى هدايتا عدده جيري دا كنت تمادانا مركي وجيريودو نينكو بي هوين يدو عدده قشا صوما حتى هدو لواتان سنة كما قيه جيري دي سنة الله صور شيغو مركاسي عدده قليسا هدو لواتان سنة كما قيه مركا كدب لفرو marka la furay cidadii furitaanka ay galaysa marka kuma xidhna muddadii laga maqnaa iyo biil baan lagu siinin iyo xuquuqdaadii baa maqnayd iyo hawsha shaqo kuma laha waxa halka ku jira faham ay dumarka Soomaalidu qaar kamid ah qabaano haweeneyda hadii xuquuqdeeda weyda inay iska furmaysaba waxa wax jira ma xuquuqdeeda hadii weydo wali waa xaas xarig baa ku xidhan laakiin xuquuqdeeda inay raadsataa u furano أما قاب توصها كراس أما قرابها كراس أما محكمة شرعيها كراس هدي ويدنا حق وحيقول هذا هي إني محكمة تكتول فسقه لكن بيلكي حقوق دي يجوش حق دي بأنواعي فوريتان ما معناه هذا توصل ما فرميس وين فوريتان لهيرو أما فسقي ماج والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤال تبعتني سديد سائلك وحولي يا شيخ الله كحفظه شيخ نبأ وحيلي كبدا سوى يغفران تهي دبنا ugu noqon maayo muddo bil iyo maalmo kadib wuxuu yiri igama furna gabadhana isku meel ma joogan ismaana arag intuu furiinka sheegay kadib ninkaas xaalkiisu muxuu noqonayaa hadii ay sugan tahay inuu furay oo cadayn loo hayo inuu furay ama uu qirtay inuu furay وفرتان دعيوه ما فرين ورما واد فرتي دلقدي نوي دعده طيب هدي دلقدي ودوني انو كان نقدو تي كوباد هدي تahay ama tii labaad tahay uu soo ceshan karaa inta xidada ku jirto laba markaati uu sameeyay wuxuu leeyahay xaski soo ceshaday in iyadu raali ka tahay shardi ma soo ceshay ehelkeedii iyo qaraabadeediina shaqo kuma laha وين ريركيسي oo ka agdhawaa xoogaa dib u soo ceshaday meesha marka qaraabadu ma faragelin karto haweenay la furay oo xidada ku jirta aabana soo ceshigeeda ma faragelin karo hooyadeedna ma faragelin karto qaraabana ma soo faragelin karto ninka iskale soo ceshiga salada ila fahway وبعولتهن بسورة البقرة إلى سوكبدين وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أنت حدد كتشران رجودا أحق لا إن يسوع الشدان حتى أيضا إن يسوع الشجر الرالي كل نقطة لازمة أيضا الرالي كو هاي سجع إسكال حقه ويسوع الشدي خلاص حاس كيسي نقطة وتلقد كوباديو يا دلقد لبعض تصدحات هذي بعضه
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مركز ويحرك فرته مركز ورمله تاوى مد داواه هدو مركب فرتان كدعي سو عش با افرن طيب هدوسن سو عشنين او سو عش وسو كدواقين فرتان كينا دعي فرتان كي ما انكري كرو و فري ما فرن دوابط فرتي حكم كيدنا ولا لازم عيار معها صوما ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلهي آيات كيسة تشيس هكذا دقاننا وحمر كادونتنا عاد اسكفري كرتو مركا دونتنا عدي كرتو مفرين ما فريتانكو وحو كدعيا إناد كل واقضة وهو كدعيا إناد قرتنا وهو كدعيا هداد سو قرتو فريتانكو ودعيا الراجح الله واحد دونتو سو قرتو marka hadii furitaan dhacay islaanta ma ba furin waad furtay dalqadiina way dhacday hadaad soo xeshi sheegatana waa khayr hadii kale tana furitaanku uu dhacay wallahu a'lam jazakallahu khayran barakallahu fiik saailka 79 waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay xaasle waxaan tagay magaalo kale oo xaaskaygii ka fogtahay anigoo sina ka baqaya ayaan meher xaday muddo kadib waan kala tagnay gabadhii aan meher xaday su'aashaydu waxay tahay kow dil oo rajmin miyaan dil ama oo dil oo ah rajmin miyaan leeyahay maadaama aan horay u guursaday talabaad meherka ma laygu leeyahay hadii ayadi ii cafistay meherka ma laygu leeyahay hadii ayadi cafistay su'aasha qaybteeda hore ninka meher xadka sameeyay horey baan u sheegnay meher xadku inuusan nikaax sharci ahayn laana waana wali la'aan waana qarsoodi nikaaxu sirri baa la dhahaa marka guur sax ma waa xatooyo tuugnimo ma asaxdo soo mid ma hadduu guursaday oo uu ku guursaday meher xad soo ma naga meher xad baan dhahnaa waa xad waa xatooyo soo ma waa tuugnimo marka meher xad hadduu ku guursaday oo ugu galmooday mazaani baan ahay oo malay karbaashaya hadduu guuri horeeyna dhagax miyaa la igu dilaya mise qiil baa la yeelka labaan u kala qaadayna markaad u galmoonaysay oo meher xadka ugu galmoonaysay haddaad ogeyd meher xadku inuusan guur ahayn markaad u galmoonaysana inaad xalaal aadan ugu tagaynina xaaraan ugu galmoonayso haddaad ictiqaadsanayd waxaad samaysay waa zino وبالتالي waxaad mudan tahay dambigii zinaduna waa ku raacayaa haddaad xaas kuu horeeyena dhagaxii lagugu dilaad istaahishaa xukun sharci haddii la helay maxkamadiisa hadduusan guur kuu horeyninna 100 jeedan in lagu dhifaad istaahishaa waa goormaan nidhi haddii markaad u galmoonaysay aad ugu galmootay adoo og inaysan xalaal ku ahayn sidaana ictiqaadsan haddaad ugu galmootay waad zinaysatay haddii markaad u galmoonaysay aad ugu galmootay inay kuu bannaan tahay ood moodaysay meher xadku inuu sax yahay oo aad u ictiqaadsan xaaskaagii inay tahay sidaa ugu galmootayna way kaa khaldantay mooyee zina maadan gelin oo markaasi laguna xadi maayo dembigana haddii aadan cilmi la'aan ahayd oo aqoon darro kuu geysay dembi ku raaci maayo labadaasaa loogu kala qaadayaa adiga niyadeed ugu galmootay marka aad isku noqdo haddii xataa aad xukun zina qaadato inaad lagu xado oo xad raadsato waxa ku dhaanta inaad is asturto oo aad toobad keento nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ruuxii dunuubtan iyo qaaduraadkan iyo qashinka wax kamida galo hays asturo ilaahina dambi dhaafa weydiisto hatta haddii maxkamad sharciya jirto inaad is asturtaa ka fiican allahumma xaq bini aadan inuu meesha soo galo oo ay ku saabsan tahay mooyee laakiin laba goorba waxaan nidhi guurku waa sax maaha keliya tan ruuxani shubha maadaama uu meesha ku galay oo guurka sax moodayay unbaa idra'u lxuduuda bishubuhaat jahliga ama shubhadaasi ku dhalatay ayaa meesha waxoogaa loogu cudur daaraya taa waa masalada labaad ee su-aasha ku jirta waxay ahayd meherkii hadday cafido
waxaa ka horeysa meher ma leedahay ilaan haddii la yidhi guurkii maba saxsanaba yaa guur aan sax ahayn haddii haweenayda loogu galmoodo meher ma leedahay jawaabtu waa haa maadaama waxoogaageedii aad taataabatay oo aad muxuu ahaa ka ag dhowaatay meher way yeelan nabigana sidaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu xadiidka caaisha ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatil haweenay kastoo guursata weli la'aan guurkeeda waxba kama jiro buu nabi sal alay wasalam markaasaa nebigu wuxuu daba dhigay fain asaabaha falaha almahru bima staxalla min farjiha guurka aan saxda ahaynee khaldan hadduu ugu galmoodo meherkeedii way leedahay maxay ku yeelatay xubinkeeda taranka xalaashiga uu xalaashaday u galmooday ayay meherka ku yeelanaysaa haddii adigoon taabanin oo bannaankaa ka jooga aad kala tagtaan waxoogaageedii waad u badbaadisay waxba kuguma laha laakiin waxoogaageedaas aad yaro barakaysay ayaa meherka laguugu yeelanayaa meherkii hadday yeelatay ma cafin kartaa waay haa waay fain tibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'an waay dumarku meherkooda way cafin karaan wax ka midana way cafin karaan kullina way wada cafin karaan marka hadday kuu cafido ayada waay haddayna kuu cafinin gabadhaa meherkeeda sii guurkiina wax jira maasaan hore soo tilmaano wallahu aclam jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik saa-ilka siddeetanaad waxau leeyahay sheekh anoo daalan ayaan isku junubay mana ogeyn maalintii waan soomay habeen kale ayaan macawiistan ku seexanayay ku arkay shahwo mana ogi goorta aan junubay ma hal maalin ka horba mise 2 maalin mise 3 salaadii iyo soonkii maalmahaas maxay noqonayaan qoyaanka aad isku aragtay ama maradaada ku aragtay haddii aad hubto inay mani yahay ama malahaagu u bato inuu mani yahay waxaa waajib kugu ah horta inaad qabaysato bilijmaac xadiiska nabiguna waa ku tusaya sal alla alayh wasalam xadiidka caaisha waxay la weydiiyey bay tii rasuulka sal alla alayh wasalam can irajuli yajidu lbalala walaa yadkuru ixtilaaman nebigaa waxaa la weydiiyey nin jidhkiisa ama maradiisa qoyaan ka helay aan si xusuusnayn in wax ka yimaadeen inay biyo ka yimaadeen mani ka yimaadeen ma xusuusna inuu qarway ma xusuusna laakiin maradiisii ama jidhkiisii buu qoyaan ku arkay mani muxuu samaynayaa baa nebiga la weydiiyey sal alla alay wasalam nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam yaghtasil wuu qabaysan soo mid maa waxaa kaloo la weydiiyey can irajuli yaraa annahu qad ixtalama walaa yaraa balalan nin habeenkii oo dhan qarwahayy oo wax qasanayay yaa oo shaqahayay oo markuu subaxdii soo toosayna wax qoyaana aan arkin kaa muxuu samaynayaa laa qusla calayhi nabi sal alay wasalam waxa qabaysa laguma laha soo maa laanna inay wax soo baxaan baa qabays ku waajibahay ama adoo soo jeeda inaad galmo samayso ayib taasoo middaa maaha marka wuu qabaysan horta haddiiba malihiisa u bato ama uu hubsado waxaan marada ku yaalla inuu maniya qabayskii waajib uu ku yahay waxaa timid salaadihii uu ku tukaday muddadaa muxuu samaynayaa su-aasha qaybteeda labaada salaadihii uu ku tukaday wuu soo celinayaa cinda jumhuuri alculamaa dib uu tukanaya wixii salaadee uu muddadaa ku tukaday laanna waxaa ku tusaya xadiidkii cabdillaahi bni cumar muslim iyo keyrkii soo saareen lafdi kalena ku yimid cinda albukhaari laa tuqbalu salaatun bikayri tuhuur salaad dahaaro la-aan uu ruuxu ku tukaday la aqbali maayo dahaarada waxaa soo gelaya ama tii yaray xadadkii yaraa in daahiruu ruuxu ka yahay oo weysada waajibinayay ama xadadkii weynaaye qabayska waajibinaya inuu daahir ka yahay isagoon daahir ahayn hadduu ruuxu tukado salaadaasi ma jirto haddaynan jirinna weli waa lagu leeyahay soo maaha ilaa waxaan salaadaan jirin buu tukaday marka salaadihii wuu soo celinaya ayib waxaa imaanaysa su-aasha ah ma garanayo janaabadani xilligay ahayd taa waxaa la doonayaa inuu ijtihaado maskaxdiisa ka shaqaysiiyo fikiro xilliga malihiisa uu u bato inay janaabadani ahayd ayuu wax ku dhisayaa aduu isku noqo marka haddii malahaagu u bato 2 habeen ka hor inuu ahaa waqtigaa wixii ka dambeeyey salaadaha tukataad soo celinaysa
haddii malahaagu u bato inuu maalin ka hor ahaa sidoo kale maalin muddada wixii ka dambeeyay baa salaha soo celinaysaa ama soon baas meesha ku jiray soonku isagu waa sax soo celin male لأن صونك شرط أمها طهارة شرط أمها روح يسوي جنابة قبا وصوم ننكره صوص ما سوى جنابة قبا هبينك جنابة كل حد صونك سوا صحيح سيد حديث الصحيحين كي غير كتب الماما مركز صونك يسوي سوء المس لكن الصلاة دي وتوع المس والله أعلم. جزاك الله خير بارك الله فيك. سائلك سديت يكواد وحولي هاي شيخ روح قال مركز وصاي إسلامه قبيسك وقبيسنا واسده ma mid janaabo ayuu noqonayaa mise sunna ahaan buu qubaysanayaa sidee ayaanu u niyoonayaa gaalka markuu soo islaamo inuu qabaysanayo way sugan tahay horta laakiin waxa la isku khilaafsan yahay mawaajiba mise waa sunna ma laazim ba xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin waa waajib inuu qabaysto lababa wuu qabaysanayaa bay leeyihiin islaamida uu soo islaamayo iyo gaal buu ahaaye haddii intuu gaalka ahaa qasab inuu isku junubay baa jirta qasab intuu gaalka janaabo way ka dhacday marka janaabadii baa wali kor ka saaran taa iyo islaamidaba wuu qabaysanayaa waajib bay ka dhigeen qoliyahaasi waxayna daliishanayaan ninkii la dhihi jiray Thumaamah ibn Uthal ee reer Bani Hanifa markii la soo qabtay oo masaajidka nabiga lagu xiray sallallahu alayhi wasallam nabiguna kolba booqan war Thumaamah iska waransan tahay isagoo tiirarka masaajidka mid ku xiran ee uu lahaa Maxamedow muxuu ahay wax dhibo ma jireen waxa samaysaa ama isiida ama iska kayayso dad isiidayso nin abaal leh qada oo sida aba isiidayso marka nabigu markii dambe sallallahu alayhi wasallam waa kiyiri atriqu Thumaamah wasiidaay Thumaamah siidaay xariga laga furay markii xariga laga furo la siidaayay ayuu marka intuu tagay oo dhul beeraho masaajidka agtiisa tagay oo soo qabaystay ayuu soo noqday markaas wuxuu yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah oo islaamay marka xadiidka saxiixaynka ku yaala saxda waxa weey nabigu ma amrin soo qabayso isaga soo qabaystay riwaaya baa jirta dhahaya markuu yaani islaami rabay idhabu bihi ila haa'it bani fulan famuruha yaqtasil inuu nabigu yiri amraha qabaystay riwaayada dacfi baa ku jira oo waxay khilaafsan tahay riwaayada saxiixaynka xooga badan oo inuu isagu iskii u soo qabaystay tilmaamaysa waxaase masalada ku sugan oo isagu hadallayna xadiidka Qays ibn Aasim وصو إسلامي مركز النبي أمر صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر بيو يجب وصابون تمشي هذا كاستعمال إنه كوقع بيست النبي أمر صلى الله عليه وسلم أحمد أهل السنن كوري واحد صحيح مشروعية ده مركز إنه قال مركز صو إسلام قبل سنة تا إيضا ويسوقن تاه لكن مواجبة مسوا سنة لسكوا هيستا شافعية ده يحنفية ده وحي ليهن ما هو واجب إيوا سنة وهذا قبل سنين حتى وصح وحده وماله واجب كما تجين وحيليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضدك صو إسلام أي آد وبنايين حدنا الله ما هيو إلى آد وصور نقطة ضدك إنه أمره مركز إسلام إنسان قبيسته آد وما صور نقول هذا واجب تهينا يعني ويفافل هيد أرن كذا أو مقر صورتين بيليه سيد الراجحة أما هل يدهدو جنابه قال لماذا جنابه بي تاسيضا وحوى يسيد الراجحة قال كإنتو صنصو إسلامي وحي خلداده قالي يا مركو صو إسلامي لماذا بابي ليس صوما قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال هذا وحي أي إسلام لماذا كهر سمية والله دافي حديث في عمرو بن عاص قصدي سين وكي النبي يقولها أما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله عمرو سومو قد إسلام كوحي كهري إنو بابيو دميو ساس دراد الجنابة لغايا باهيري كود عدا إنتو قالك ووحي كلا وقالي ورمنا الله قبصدو مسألة مركب مسألة جنابة معها إسلامي دو إسلامي باقبيس الله نهايا لقمنا اللازمين سيدا ساحوك بدن على الصحيح
إننا لازم كو أهين لكن أي في عدها إنه قبيستو والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابل مريو سؤالها أين ويديني جوابها وناكسن علمي سنة وكبحيي. إلهي سبحانه وتعالى من سنة وسليو وحن برارجين لها برامج كان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شيء ستحاد بالصعداء وحلقة الشناد واحد شراء سؤاله بيرنتو فربديهين ديارته دنا وحي قاطع وقت هذا فربدن bulshada Soomaaliyeed oo meel walba kala joogta caalamkana su'aalaha way soo dirayaan waxa marka marar badan la isweydiiyo leeyahay su'aashaydii wali sheekh looga gudbin miyaa la hakranaya waxay xagee la mariyay waxa jira su'aalo aan wali gaadhin oo maalinkii la bilaabay barnaamijka ilaa hadda hatta aan la soo gaadhin liiska iska daa kuwa cusub ee daymanaya marka waxaan sameeynay insha Allah ta'ala aan sameynaynaa su'aal kasta oo sheekhu xalqad hore kaga jawaabay dib u soo celinayna marka walaalaha su'aalahoodii laga yaabo inay tabayaan hadii ay jirto xalaqaadkii hore ha soo dhageystaan insha Allah ta'ala haduu sheekhu ka jawaabay soo celinayna biidhnillah ta'ala su'aalaha waxa lagu soo hagaajin doonaa sidii hore loo sheegay page-ka Facebook masjidka Abu Bakr Siddiq ama masjidka Sigiska Nairobi page-ka ay ku qoran tahay Facebook iyo numberka WhatsApp numberka masaajidka +254 714 300 300 أدوم هزنتين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.